munaasabadan loo sameeyay furitaanka shirkadda caalamiga ee Mason Engineering Service waxaa ka soo qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland oo ay kamid ahaayeen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha, boostaha iyo isgaarsiinta, ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga, caafimaadka, qorsheynta qaranka, hawlaha guud, tamarta iyo macdanta, iyo wasiir ku-xigeenada wasaaradaha hawlaha guud iyo gaashaandhigga, xogayaha madaxweynaha, mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale oo ka socday shirkadaha kala duwan ee dalka. Waxa ugu horeyn munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa Dr. Cabdi Gaas, mas'uuliyiin ka socday shirkadda Mason Engineering Service oo markaasi ah mas'uuliyiin sare oo shirkadaasi ka tirsan, waxaana ay tilmaameen shirkaddan inay tahay mid caalami ah oo ka qayb gasho wadamo badan oo caalamka ah. Waxaana ay tilmaameen shirkaddan Mason Engineering Service inay tahay tan ugu caansan dalka Pakistan, shirkadaha ugu waaweyn gacanta ku haya ee Pakistan iyo Imaaraadka Carabta. Sidoo kale waxay gacanta ku hayaan bay yiraahdeen Itisaalaat iyo Du oo ah shirkadaha ugu waaweyn dalka Imaaraadka Carabta dhinaca isgaarsiinta, kuwaasi oo 21 sano ay ka shaqeynayeen iyagoo 750 hawl wadeen oo dalka Pakistan iyo 150 dalka Saudi Arabia uga hawlgala shirkaddan ay jiraan. Waxay mas'uuliyiintani sheegeen in shirkaddan ay doorteen in Soomaaliland ay ka hirgasho maadaama Soomaaliland yahay dal ku yaala Geeska Afrika kaasi oo xasilooni badan ay ka jirto. shirkaddan soo jeedatay sida loo adeegsanayo isgaarsiinta casriga ah. Waxay tilmaameen wadamo kamid ah Afrika inay ka hirgeliyeen qaybo kamid ah wireless, fixed iyo mobile network. Soomaaliland ay ugu tala galeen maadaama kuwaasi ay ka jiraan in sidii loo sii kordhin lahaa iyo dadaal kale ay ka geysan doonaan. waxaana sheegeen in Soomaaliland ay noqon doonto xudun ay ka quudin doonaan wadamo badan oo ku yaala Geeska Afrika, taasoo ay gaarsiin doonaan tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta casriga ah. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Cali Maxamed Warcado munaasabadaasi ka hadlay waxa uu sheegay in shirkaddan ay soo dhaweynayaan amniga iyo horumarka Soomaaliland ka hirgelina ay soo jiiteen shirkado badan oo soo baratamaya dhinaca Soomaaliland. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan leeyahay welcome, waan soo dhaweynaynaa gacmo furan iyaga iyo kuwa ka dambeeyaba ee insha Allah u iman doona. waxa kale jecelahay inaan inagu baraarujiyo haddii wadanku yahay wadan degan oo dadkiisu yahay dad sharci yaqaan ah oo wada jira oo nabadooda ilaashada oo kala dambeeya oo low iyo order leh, bini aadamku uu yimaadaa waana loo soo hiloobaa. haddii se dadku ay ku sifaysan yihiin dad intaaba lidigeeda dhib weyn bay leedahay sida aynu ka aragno wadamada aynu jaarkanahay qaarkood. waxaan leeyahay waa sharaf bay naga lafteena inoo tahay in ammaantii halkan laynaga siiyey iyo aqoonsiga aynoo aqoonsaday inuu nahay dal degan lana maalgashan karo. waxaan leeyahay waxay u noqonaysaa ilaahay waa mahad leh, laakiin shacbiga iyo dawladda iyo ummadda reer Soomaaliland ayaan iyaga laftooda Ilaahay caawa aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin mandarka u muujiseen caalamka inta dibadda inaga soo eegaysa. wasiirka wasaaradda boostaha iyo isgaarsiinta ee Soomaaliland Maxamed Jaamac Abgaal oo munaasabadaasi ka hadlay waxa uu soo dhaweeyay shirkaddani, waxaana uu sheegay in isgaarsiinta Soomaaliland ay horumar iyo heer casri ah marayso, isagoo wasiirku sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay dhiiri gelinayso shirkadaha imanaya iyo kuwa sii jiraba sidii ay koboc dhaqaale oo horumarineed Soomaaliland uga geysan lahaayeen. waxaana wasiirku sheegay wasaaraddu inay qorsheynayso dhawaano lagu tallaabsan doono buu yidhi in Soomaaliland ay yeelato furo cusub oo dhinaca telefoonada khadka dibadda lagaga soo galay. aad culeys noo baayo oo aanu la dhowdhowna insha Allah na dhamaan soo geli doon marka aynu isticmaalayna telefoonada waa 252 macnihiisu waxa weey wakiilda Soomaaliyeed halka ka soo galayno waa halka waxaan idin ilaahay idinka ka rajeenaya caawa ma oranayo maalin hebla ballan qaadi waayo kaasoo bedelano Soomaaliland number kale leedahay ayaa insha Allah maalin tusdoona. wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar oo dambeeyay munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu soo dhaweeyay shirkaddan isagoo sheegay in xafiis maalgashi caalami ah ay Soomaaliland ka hirgeliyeen, taasoo uu tilmaamay in wax weyn ka tari doono ilaa iyo haddana sida uu shaqeynaya ay tahay mid muhiim ah, taasoo dhiiri gelisay shirkado waaweyn oo dunida ka caalamka inay Soomaaliland yimaadaan, kuwaas oo hadhowta la filayay in wadamada kale Afrika ay ku sii fidaan. waxaana wasiirku uu tilmaamay in Soomaaliland ay ganacsiga xorta ka hirgelay uu noqday mid beesha caalamku ay si aad u soo dhaweyso xukuumadahana siyaasad aad ay ka door qaateen, isagoo sheegay in shirkad kasta oo Soomaaliland maal gashanaysa ay soo dhaweynayaan xafiiskaasi ay ugu tala galeen wax weyn inuu ka tari doono. laga waramay kana muuqatay warbixintii ay nasiyeen shirkad aad u ballaaran oo farsamo fara badan leh, haday tahay dhinaca communicationka ama isgaarsiinta ama dhinaca caafimaadka haday tahay iyo qaybo kaleba wax tar weyn oo muuqda dalka ku soo kordhin karta. aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa.
waxaan xukuumadahan aanu cadeynaa inaanu la shaqeynayno waxa la wixii tasiilaada ama fududeyna waajibaadku nafarayana aanu ka gacan siin doono shirkadan iyo sharaa'iga kale ee caalamkaba intaba waanu kusoo dhaweynaynaa dalka horumarkiisa iyo dhismihiisa ciddii nagala qayb galanaysa aad iyo aad baan soo dhaweynaa